بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. marka hore walaalaha ummahatul khayr waa idin ducaynayaa iyo dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa marka hore qayb kamid ahna kuley waa ka dhigi doonaa casharkeyga ducada loo akhristo cudurrada khatarta ah sida coronavirus oo nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey. ducadaasaan ku ducaysanaynaa. waxaan leenahay allahuma inana ilaahu annagoo dhan nacuudu bika waxaan kaa magan galnay min albarasi waaljunuuni waaljudaami wa sayi'i lasqaam. ducadaasi waxa waaye mar kale allahuma ina nacuudu bika min albarasi waaljunuuni waaljudaami wa sayi'i lasqaam. mar saddexaad allahuma ina nacuudu bika min albarasi waaljunuuni waaljudaami wa sayi'i lasqaami. micnaha allahuma ilaahow innaa annaga nacuudu bika magantaadaan galnay waxaan kaa magan galaynaa min albarasi cudurka baraska ee hargaha ama qofka haragiisa cadcadeeya oo midabka oo dhan bedela oo qofka muuqaalkiisa isbedela. waaljunuuni cudurrada waalida oo dhan noocu doona ha ahaado, kan isla hadalkaa ugu yar, qofka oo maskaxdiisa dhaawacanta aan wax kala garanaynin, mid wax dhaawaca oo waalan, mid aan wax dhaawicin laakiin waalan, mid muuqaalka inuu fayow yahay aad u malaynaysid laakiin waalan. nooc kastoo waali ah ayaa la yidhaahdaa aljunuun. ilaahu adaan kaa magan galnay. cudurka saddexaad waxa waaye waaljudaami. soomaalida juudaanay u taqaanaa. waa cudur ku dhaca jirka oo dhan oo markaasi qofka jirkiisa kala daata, wejigiisa doorsooma oo isbeddel ku dhaca ilaa aan laga garin karin nabaro darteeda. waa cudur faafa oo qofka meel lagu karantiilo. ilaahaan ka magan galnay. wa sayi'i lasqaami waa cudurrada xunxun. sayi waxa waaye xun al asqaamina waa cuduro. marka cudurrada khatarta ah oo dhan waxaa soo hoosgelayo coronavirus, waxaa soo hoosgelayo cudurkan hadda amicron ee dhahaan ama amicron, iyo cudur kasta aan la garanaynin dawadiisa oo khatar ku ah bini aadanka noloshiisa oo dhan aan ilaahay ka magan galaynaa. saas waa ducada. marka qofka mu'minka ah markuu arko wax laga yaabo ilaahu ka cabsadaa, sababtoo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifa. aayaadka waxaan u soo diraynaa calaamadaha oo cudurrada ka mid a. ilahi wuxuu leeyahy waxaan dadka ugu soo sallidaynaa inay cabsadaan oo awooddeenna intay la eg tahay ay ogaadaan. markaad ogaato awoodda ilaahay intay la eg tahay waa cabsanaysaa. ilaahaasi markaad ka cabsato oo aad garato awooddiisa, ilaahaasi waa arraxmaan uraxiim, uu ku naxariisanaya. horta taas waa hal duco waaye. ducada oo casharkan ugu talagalay meeshan aan ku soo qoray waxa waaye ducada loo akhristo haddii aad maqasho inuu qof ama laba qof ama koox ama dowlad
ama argagaxiso ama ciidan oo dhaalimiin ah ay kuu qorsheynayaan in naftaada ay khatar geliyaan ama inay ku dilaan ama inay ku dhaawacaan. ducadan qisay leedahay, waxaana akhristay oo ducadan ku ducaystay qof ka mid ah awliyada ilaahay oo taabici ahaa oo aa wada garanaysaan ama magaciisa aad maqasheen intiina badan ama dhammaantiin. sheekhaas ama imaamkaas waxaa magaciisa la dhihi jiray alimaam alxasan albasri, alimaam alxasan albasri ama xasan albasri dadka qaarkooda say dhahaan. imaamkaasi imaam masjiduu ahaa, caalimuu ahaa, waa taabiciga dadka ay yiraahdeen ama culummada ay dhaheen waxa ka soo baxaya waa xikam oo ka mid ah ama waa maaragtay mahmaah ama xikmadihii ambiyada ka soo baxo carabkiisa markuu hadlo. waxayna yidhaahdeen taas waxay ku dhacday waxaa dhiiggiisa iyo hilibkiisa ay ku koreen naas nuujin ay naas nuujisay hooyo ka mid ah hooyooyinkii mu'miniinta. marka halkaasi marka laga fiiriyo nebi maxamed calaih salaam aabbuu ugu noqonayaa, hooyadaasna oo magaceeda la yidhaahdo uma salama hooyay u noqonaysaa. sheekadana waxay ku timid isagoo ilmo yar ah oo markaas dhashay, hooyadiisa waxay kaga tagtay uma salama. uma salama waxay ahayd waayeel, rasuulku uu dhintay calayhi salaatu wasalaam. markaas ninkan taabici uu ahaa, asxaabtuu soo gaaray, rasuulku ma soo gaarin. maamadaanoo aad waayeel u ah, saa ula socotaan markuu guursanayay xitaa qof weynay ahayd, markii rasuulku uu sii dhintana way sii weynaatay. iyadoo waayeel aad ah ayaa wiilkan ayaa loogu tegey inay hayso. maamadii wiilka dhashana suuqay aaday, iyadoo ahayd jaariyad u adeegayso umu salama. intay suuqa ku maqneed ilmihii waa ooyey. cunugii markuu ooyey, maamadii hadda waxay siisana ma hayso, waayeelna waa tahay, naaskeedii ma ahan naas wax lagu nuujin karo. marka ilaahay maamadii wuxuu ku ilhaamiyey umu salama inay naaskeeda waayeelka ah afka ay u geliso say ugu aamusiiso. aad u ooynaya, afka markay u gelisay wuu aamusay. markuu aamusay mucjizaa dhacday, naaskiiyuu jaqay. markaas kadib waxay dhahday waxaan dareemaa naaskay inuu caano ka imaanayo. naaskii marka caanaha ka soo baxay, caanihii saas u jaqay, marka ilaha caana ka keenay. waa qiso oo karaamo ah, karaamooyinka ninkaasi sheekhaasi ama imaamkaasi uu lahaa. waa karaamadii ugu horeysay dhahaan culummada qaarkooda, karaamooyin badanaa lagu arkay. markaasi kadib markuu hadlo, buugaag maaragtay kutubo badan ayaa lagu qoray xikmadaha uu sheegay. dacooyinkiisana waa la aqbali jiray, ilaan meeshaasuu ka soo jeedaa. rasuulka calayhi salaatu wasalaam gurigiisuu galay. markii caalim weyn uu noqday oo sheekh weyn uu noqday oo aada loo ixtiraamay, ilaahayna cilmi carabkiisa uu waafajiyey, ayaa maalin maalmaha ka mid ah nin oo koley aa wada garanaysaan oo dhaalim ahaa oo madaxweyne ahaa oo la dhihi jiray xajaaj ibnu yuusuf. xajaaj ibnu yuusuf waxaa dhacday, wuxuu aad u dhibsaday khudbooyinka iyo casharada uu bixinayo imaamkan. wuxuuna kaga hadli jiray qofka dhaalimka ah hadduusan joojin dulmiga, mar dhow ama mar dheerba ilaahay subxaana wa tacaala uu ka argudan doonaa. wuxuuna xusuusin jiray xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam, ittaquu dacwat almadluum, iska ilaaliya qofka madluumka ah, dulmiga aad dulmaysaan iska ilaaliya. nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, laysa baynaha wa bayna allahi xijaab. qofka markuu dhaho yaa rab
yaa rab markuu dhaho oo gacmaha kor uu u taago isaga hadalkiisa iyo ducadiisa iyo ilaahay wax xijaab uma dhexayso dacwatu lmadluum markaasuu u digi jiray ninkaasi madaxweyne ahaa oo daalim ahaa oo dhib badnaa dadka dili jiray oo dictator ahaa wuxuu dhihi jiray ilaahay ka cabso warjooji dulmiga dadka aad ku hayso markii dambe waa u adkaysan waayey xajaaj madaxweynihii ama amiirkii wuxuu go-aan ku gaaray in ninkaasi lasoo qabto intaas keliya ma ahan wasiiradiis wuxuu u sheegay in lasoo qabto oo hortiisa isagoo fadhiya lagu gowraco sida xoolaha oo kale markaasna la jarjaro dadka si ugu waana qaataan oo marnaba aysan wax ka sheegin madaxweynaha wuxuu sameeyey marka askaruu diray khudbada markuu ka soo baxo jimcaha markuu dhammeeyo khudbada soo qabta soo garba qabta soo kaxeeya ii keena waxaan diyaarina u dhahay nimanka oo dadka dila markii qofka dembi uu galo niman waxaa jira oo maqaar weyn fidiya oo xoog waaweyn oo qofka hal mar markay qoorta ay ku dhiftaan khalaf wuu dhimanayaa nimankaasna wuu diyaariyey oo seeftooda diyaarsan tahay maqaarka ay diyaariyaan isagana hortiisa uu fadhiyo oo uu rabo sheekha in lasoo qabto markii la keenno meesha in lagu gowraco askartii way baxeen masaajidkay sheekha ugu tageen way soo qabteen waxay dhaheen annaga wax kuma dhaawaceyno waxna kuma gaarsiinayno waxaan kaa rabnaa oo kale inaad na raacdo ninkaasi oo madaxweynaha ah oo aad garanaysa xajaaj ibnu yuusuf aa ku baadigoobayay na raac inkastoo wax khayr badan uusan sheegaynin waayahay uu dhahay wuu raacay nimankii ilaa wuxuu u raacay sartii weyneed ee madaxtooyada intaysan sarta gelin albaabkiisa ayaa wax afkiisa wax maaragtay wax aysan hadal ama duco aysan maqlaynin waxbuu dhahay waxbuu dhahay albaabkii markii uu galay oo hadalkaasi uu saas u hadlay cid maqashay ma lahayn albaabkii marka la kala furay albaabkii weynaa ee madaxtooyada ayaa markiiba dadkii madaxdii wasiiradii oo sugayey ninkan markii la keeno in markiiba lagu boodo nimankii waaweynaa oo dhulka ay dhigaan labana ay qabtaan midna uu gowraco la sugayey ayaa kursigii waxaa ka soo degtay ninkii amiirka ahaa xajaaj ibnu yuusuf aa wada garanaysaan ama qaarkiin ay garanayaan ee dilaaga ahaa ee dhigicabka ahaa markuu ka soo degay wuxuu dhahay ahlan wa sahlan yaa abaa saciid ahlan wa sahlan imaamana imaamkeenii faqiiheenii caalimkeenii noo soo dhowow ilaahay baaraka lahu fiika ilaah ku barakeeyo su-aalana waa qabaa maanta bal halkan soo fariiso waxaad mudan tahay meeshaan meel ka sii fiican in lagu fariisiiyo war aawi kuwii barfuunka shubayay war soo orda wax filaya malaha nimankii hadday ordeen barfuun iyo cataray keeneen war imaamka catar iyo barfuun ha loo mariyo aawi kuwii hadiyadaha qaabilsanaa waana kan hadiyadaha loo keena imaamka sheekada way isbedeshay jawiga oo dhan oo maxaa bedelay duco kaliyaa bedeshay mu'minka ducuu ku socdaa ogaada mu'minka qalbigiisa nadiifka ah saas waay carabkiisa nadiifka ah dhegihiisa nadiifka ah indhihiisa nadiifka ah gacmihiisa nadiifka ah cagihiisa nadiifka ah qalbigiisa nadiifka ah gacmuhu kor u taagayaa ama si siru u ducaysanayaa ducadaasi siday taha loo qaadayaa oo loo fulinayaa markii uu ku hadlay wuxuu ku hadlay oo cidna aan maqlin albaabka markuu soo galayay wuxuu dhahay markiiba waa la bedelay
ninkii amiirka ahaa oo madaxweynaha ahaa oo diyaarka u ahaa oo ku dhaartay iyaga wasiirada iyo cid kasta hortooda u dhahay waa dilayaa ninkan ammaanka aan ka heli waayo waa gowracayaa ayaa hal mar wuxuu isku bedel inuu dhaho sheekhaynii imaamkeenii faqiiheennii noo soo dhowow aawi qoladii barfuunka iyo catarka keena barfuunka iyo catarka caalimka aan u marina aawi qoladii qaabilsanaa hadaayaadka iyo waxyaalaha dadka lagu soo dhoweeyo nimankii oo wax gowrici lahaa waa yaaban yihiin wasiiradii waa yaaban yihiin la taliyaashii waa yaaban yihiin aawi sheekha halkan soo fariiso meel oo dadna aan fariisan oo isaga u dhow u fariisiyey oo meeshiisa ah kadib ayaa wuxuu yidhi su-aalaan kuu qabaa su-aalihii way weydiiyey sheekhi su-aalihii ka jawaabay su-aalihii markuu dhameeyey kadib ayaa wuxuu yidhi sheekha aawey askartii wax dhoweynta qaabilsaneed si sharaf la sheekha ha loo dhoweeyo ha loo raro ratiga ha loo saaro hadaayaad hadiido fara badana ratiga loogu buuxiyey oo loo raray sheekhi waa aamusan yahay su-aaluhu ka jawaabayaa markii su-aalaha uu ka jawaabay oo sheekhii waa la macsalaameeyey albaabkii markuu geeyey nimankii askarta ahaa oo la socotay oo keenay ayaa gelbiyey markay gelbinayeen waxay yidhaahdeen imaamow anaga waxbaan ogeyn oo aanan kuu sheegin waxaan aragnay wax aadan ogeyn waxaadan ogeyn markii anaga nala soo diraayey wuu kuu caraysnaa wuuna kuu dhaartay wuxuuna ku dhaartay haddaan ku keenno in cadcad in lagu jaro oo lagu jarjaro oo kadibna warkaaga aan la maqlin intaas keliya maahee wuxuu dhahay hortiinaan ku samaynayaa markii aan ku soo kaxaynay waa iska aamusneed koley waxbaad akrinaysay laakiin albaabka markaan kasoo gelaynin waxbaa akrisay waxay bedeshay muuqaalka ama jawiga oo dhan ay bedeshay marka fadlan oo ku baryaynaa ilaahay dartiisa noo sheeg maxaa akrisay markaasaa wuxuu yidhi albaabka markaan soo galay oo indhahayga ay ku dhaceen ninkaasi oo caraysan oo taagan aan waxaan dhahay yaa waliya nicmatii wa yaa malaadii cinda kurbatii fajcal naqmatahu calaya bardan وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم أنكو عليو يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي فاجعل نغمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم مركل عنك علي يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي فاجعل نغمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم دعاء سوى دعاء الله أخرسته قفك وحكو مليغيو أما وحكو قشينا يكدبا ينفت هذا أما داوعا أما دليو وإلها كما قنقليسا محال هذا هاي وحيد دعاءكم الله ميسا يا ولي نعمتي نعموين كيغا الله وليغا او اها الله حريريناي الله waxa nicmo aan haysto dhan gacantiisa ay ku jirtay ee nafta ugu horeyso gacantaada ku jirta waya malaadi inda kurbati malaadi ka hoos galay inda kurbati markay kurba ay hayso markaan kurboodo waa kurbaysnahay ninkaas hortaagan oo fuurfuursamayo oo gacantana hub ku haysto oo intaasoo ciidan hub haysato ag joogta oo raba inuu iga takhalluso kurba ay haysato fajcal naqmatahu waxaad yeeshaa qorshihiisa waxaad ka yeeshaa bardan qabow
وسلاما يميضا كنبت قالوا علي أنيق دشيد كما جعلت النار ساد نارت وغيا شيء بردا وسلاما قبو ينبت على إبراهيم نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنت أسكلي وأخست دعوة حين قتل وذا حفظيه عالم كورنان أي حفظيان مركي دروستي سي أخريان كراماتك سي كمي دهيت والشيخ مركا لوضس دعان عاو إذا كغتغايا دعا دي كوادنا حياة دعا كورونا فايروس أما عذرة قطرت أي جرمانت أنا أركينين لو أخسته دعا دو باهنته دعا الله بعضنا حواي هدي وميالو دادك وصريه midkood ama kan labaad haato ama kan saddexaad dhib ay kuu geystaan ama cid kasta oo aad ka cabsanaysid inay dhib kuu geysan karaan cid kasta aad ka cabsanaysid inay naftaada khatar gelin karaan koox ama qof ama ciidan ama dowlad ama argagixiso noocii doonta ha ahaato دعاءنا هوس كريسا وكري إلهي سبحانه وتعالى يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي فاجعل نغمته علي فاجعل نغمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم إله نجا أقبل دعاء إله كوي حصوص نغيال مركي دب أن سو واجهنو مركي بني آدم أما مخلوق أوديس أين سو واجهدو دعاداسي أيا الله أخستا شيقاسي كرامة له عالم كأه أيا دعاداسي له وافجي وأقول قولي هذا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة